aniga jecel waana isku balbalaarinay sida kimista nin aniga ahayn ba isku balbalaarimay adigu waxaad sheegtay gurigaad ku sharaxatay waxaad tiri inaad tahay wadnahaaga bidix aniga waan ku seexdaa waan ku soo toosaa way igu dhex meedhanaysaa wiil hore jacayl ugu qaaday fartuun balbalaarka oo ku sugan magaalada Burco ee maamulka Somaliland ayaa dhawaan waxa uu sheegay inuu jacayl xad dhaaf u qaaday isla markaana wuxuu u soo jawaabay wiil kale oo ku sugnaa magaalada Hargeysa isla markaana sidoo kale sheegay inuu fartuun balbalaarka jecel yahay jacayl horay ugu soo bandhigtay fanaanadaasi wiilkan oo ku sugan magaalada Burco ayaa sidoo kale sheegay inuu fartuun balbalaarka asagu jecel yahay isla markaana aysan jirin qof xiriir ama qof kale oo jacayl u soo bandhigan karta jacaylkiisana ay tahay uu ku riyoodo sidoo kalena ay niyada ugu dhisan tahay habeen walbana sida uu sheegay ay riyada ugu timaado fartuun balbalaarka isagoo sheegay sidoo kale inuu isku balbalaari doono sida kimista sida uu asagu sheegay wiilkani ku sugan magaalada Burco haddaba fanaanada reer Muqdisho ee fartuun balbalaarka ayaa sidoo kale waxay iyadu u muuqataa inay booska ka ciriirsanayso gabdhaha Somaliland ee ku sugan deegaanada maamulkaasi isla markaana wiilasha ku sugan maamulka Somaliland ayaa dhamaantood inta badan isku garbinaya arrintan halka magaalada Boorame ee gobolka Awdal sidoo kale dhawaan wiil kale jacayl u soo bandhigtay fartuun balbalaarka wiilkan ayaa noqonaya kii saddexaad ee sheegay inuu jacayl u qaaday fanaanada fartuun balbalaarka balse xiriiro aan la sameynay wiilashan qaar ay inoo sheegeen sababta ay fanaanadani u jecel yihiin inay tahay alaabaha iyo jirka ku xiran fanaanadaasi reer Muqdisho isla markaana ay jeclaan lahaayeenba inay mar ooridiisa noqoto say noo sheegeen dhamaantood dhanka kale wiilkii ugu horeeyay ee fartuun balbalaarka jacaylka u soo bandhigta ayaa laba gabdhood isku mar ku guursaday magaalada Hargeysa labadoodana dhawaan la aqal gali doona waxayna sheegeen in noloshooda ku qanacsan yihiin marka loo eego noloshii hore ay ku jireen dhamaantood ay yihiin hadda kuwo jacaylkooda cusub ku faraxsan wiilkan ayaa sidoo kale iskoor ka jabiyay kadib markii ay laba gabdhood isku mar guursadeen labada gabdhood ayaa sidoo kale ah laba gabdhood oo saaxiibo ah isla yaqaana isla markaana hal mar wada bartay wiilkii hore ee fanaan fartuun balbalaarka jacaylka u soo bandhigtay lama garanayo arrintani siday u sii socon doonto isla markaana jacaylka fartuun balbalaarka loo hayo ayaa maalinba maalinta ka dambayda hawada sii galaya iyadoo dadka reer Muqdisho ama wiilasha ku sugan Soomaaliya ay aad uga soo horjeedaan in fartuun balbalaarka jacayl loo qaado isla markaana waxay leeyihiin uma qalantaba fartuun balbalaarka in la jeclaado waa sidee ay ku sheegeen fartuun balbalaarka ayaa iyada laftirkeedu waxa la leeyahay dhawaan waxay la aqal gali doontaa wiil ay isku hayb yihiin isla markaana ay isku beel ka soo jeedaan sida ay noo xaqiijiyeen dadka agdhow fartuun balbalaarka oo ku sugan magaalada Muqdisho iyo sida arrintaasi u dhacday ayaa dhamaanteedba waxaa la leeyahay dhawaan waxaa dhici doona arooskii qarniga oo lala yaabo sidoo kalena magaalada Muqdisho ayaa waxaa u shidmi doonta fartuun balbalaarka halka wiilasha reer Hargeysa ama reer Burco ama reer Boorame sidoo kalena ay ayaguna u hanqal taagayaan inay mar uun xidigtani diminteeda qabtaan lama xaqiijin karo sidii arrintani ugu guuleysan doonaan waxaase la leeyahay isku dayadani hadda muuqda waa kuwii ugu dambeeyay ee ay booska kaga ciriirsanayaan fanaaniintaasi ama fanaanada ku sugan magaalada Muqdisho oo hadda la leeyahay fanaanada lagu magacaabo balbalaarka waxaa banaanka soo dhigay wiilasha Muqdisho oo dhamaantoodba wax xiriir la sameeysan iyadoo arrintaasi sidoo kale fartuun balbalaarka ay u aragto fursad kale oo arrintani maaragtay ku dabaqi karto ama ku wajihi karto isla markaana ay wiilasha reer Muqdisho fariin ugu diri karto fartuun ayaa sidoo kale la leeyahay waxay ku wajahan tahay maamulka Somaliland isla markaana waxay ku soo qaban doontaa show halkaas ka dhici doona oo lagu casuumay dhawaan lama soo oga sida fanka halkaasi uga hirgeli doonto maadaama fartuun balbalaarka fankeeduba uusan lahayn wax xigmada marka loo eego fanka Soomaalida dhexdeedaba ay ka tahay tuka cambaar leh kaligeed samaahana waxaa jira dad badan oo isku haysta inay fanaanin yihiin fankana ku ciyaaray isla markaana fanka ka fahmay fisqiga yeereeya qaldan intaba haddaba fartuun balbalaarka ayaan ku eegi doonaa muuqaalkan kan xiga
sida fankeeda ay kusoo bilowday iyo waxay ahaan jirtay intaba. Waxaan haddana nala daawataan wiilkii sheegay inuu Fartuun Balbalaarka jacaylka u qaaday islamarkaana uu hadda yahay ninka ku riyooda ayada, qof kalena uusanba jirinba, islamarkaana uu hadda ayaday ku yahay loofka keliya ee dunida uu ku leeyahay. Waa sida uu sheegay wiilkani. Bal nala daawada wiilkan sida uu Fartuun Balbalaarka jacaylka ugu qaaday iyo siduu iskugu balbalaarin doono intaba. wiilkan oo lagu magacaabo Cabdiqaadir Shaarub fiidiyo ku baahay baraha bulshada ayuu digniin ugu diray wiil magaalada Hargeysa ku sugnaa oo sheegay inuu jacayl u qaaday Fartuun Balbalaarka. Cabdiqaadir waxa ku sugan yahay magaalada Burco oo dad badan u yaqaanaan gobolka Ragga. Waxa noo suurta gashay inaan ku booqano guriga uu ka degan yahay magaalada, waxaana si adag u dhaliilay wiilka reer Hargeysa ee jacaylka u qaaday Balbalaarka, isagoona carabka ku adkeeyay inuuna helayn Balbalaarka balse isagu uu hanti u leeyahay, Burcana ku soo dhaweynayo, in badanna uu baafinayay jacayl uu hayaana uu qarsanayay, balse markii uu maqlay wiil jecel uu afka furtay. waraysi gaar ah oo na dhex maray aniga iyo Cabdiqaadir ayaa waxa u dhacay sida tan. halka waxaan baa ugu direeyaa ilmi yar ee Hargeysa ka soo ciyay ee lahaa Fartuun Balbalaarkan jecelahay ayar laxba laga yiri nin baa jacaylkiisa gabadhiisa leedahay waan jecelahay ma helaysid baa ku ma helaysid Fartuun Balbalaarka ani waa oxygen ku noolay Fartuun Balbalaarka ma helaysid adar ha ku riyoon wato way ilaa inta in lag baa jeclay Cabdiqaadir fanaanada Fartuun Balbalaarka waxaan jeclaa ilaa markii xasanto surwaalka u galiyay waa markii ugu horeysay arko Fartuun Balbalaarka jira inna caadi ay leedahay waxaana ku jeclaa jira inna caadi ay leedahay quruxduna maaha wajiga waa jirka gabadhu haddii jir leedahay wajiga si kasta wuxuu yahay daayir gorilaha oo ekaato dhidar oo ekaato waraba oo ekaato haddii jir leedahay way soconaysaa de wajiga maraba iska saarayba marka Fartuun Balbalaarka inna caadi ma waa macaan way fariinta marka xaggan aad uga dirayso haddii codkaagaas uuba gaadhaba maxay tahay Cabdiqaadir Fartuun Balbalaarka Fartuun Balbalaarka waxa leeyahay baby oo ku jecelahay ana dadka kugu jecel noloshaydaad indhahaygu haddayna social media ka arag habeenkii ma seexdo maalintii ma joogo karo casarka waxa kuli casiriyuhu bay dhadhami maayo shaha casiriya haddana ku arag habeenkii ma seexdo ma gamaba haddaanan heesada daawan ama sawir aad leedahay Facebook ka arag marka waxa leeyahay baby haddaad maqlayso ama muuqaalkaygu hadduu ku soo gaaro nimanka aad leedahay please baby nimanka aad leeyahay iga daa casatab oo ka hadhay ninka yar xun sida xun xiiran ee moto la saaratay iyo kuwa kale leeyahay kan guriga ku leeyahay iga daa baby iga daa dhibis isoo waxa doonaysaa inaan xamar ugu imaado nimanka laay iga daa baby aniga dib heekeen naftaydana xiyaalan iga daa baby fariinta kale aan diray waxa weey baby gobolka Togdheer waa gobol laga taageero waana gobolka waa hooyada fanki abwaan ma jiro fanaan ma jiro hadduu jirana waa gobolka soo baxo waana gobolka laga soo saaro nin fanaan noqday ma jiro hadduu jirana waa fanaan gobolka Togdheer laga soo saaro reer Burco yar iyo weyn waa wada abwaan mid ka dhaca male had raawad maqal jirtay gabiguba waxay reer Burco waa wada fanaan fankana iyaga ansixiyo fanana ay reer Burco ansixina ma socdo mana soo baxo marka waxa leeyahay aniga ma 10 haysood xitaa haya marka nagu soo boqo oo gobol laga taageero wallahi sida lagu taageero cawaala aadan xitaa loogama taageero Burco sida laga taageero cawaala aadan baa looga taageertaa fadan nagu soo boqo showyadan ku qabanayna oo ku qabanaya ana xitaa ku qabanaya odashaar gobolka Togdheer laga yaqaan caab baan ka hay ana xitaa 10 haysood diyaariyay ku dhiibay kaasi wuxuu ahaa wiilkii Fartuun Balbalaarka jacaylka u qaaday inuu soo jawaabo wiilkii reer Hargeysa ee gurigiisa ku sharaxday sawirada Fartuun Balbalaarka isla markaana sheegay inuu asagu jecel yahay. wiilkan oo hadda ku sugan magaalada Hargeysa ayaa horaantii sanadkii 2019 dhexdeedii sheegay inuu fanaanadaasi Fartuun Balbalaarka si aad u jecel yahay isla markaana uu gurigiisa ku sharaxday ayadana uu loof ku yahay. hadda waxaan ku soo dhawaataan muuqaalka wiilkaas oo horay u sheegay inuu Fartuun Balbalaarka ku sharaxday guriga iyadana aad u jecel yahay iyo sababaha uu ku jeclaado na faahfaahin doona intaba.
waqti kooban ayaa ka soo wareegay markii cabdikariin oo ku sugan magaalada Hargeysa qolkiisa ku sharaxay magaca balbalaarka sheegayna inuu jecel yahay arrintaasi oo saameyn ku keentay baraha bulshada. balbalaarka waxa tahay qof xushmad leh aan jecelahay respect weyn ma ku haya I love you Hargeysana oo ku soo dhaweeyna runtii 24 hours waxaan taagnaa airportka. fanaanada balbalaarka ayaa ilaa hadda aan jawaab ka bixin codsiyadaas jacayl iyo hirdanka u dhaxeeya dhalinyaradaas jacaylka u qaaday. Sikriye Ilyas Jakarta, Burco.